sharci darro ah baana lagu xiray iyadoo waliba anaga hooyo aan qalanahay aan ku leeyahay waxaan idhaahdo war waan qalanahay si xun hayla dhaqmina ay 10 intay ku kay qabteen bay gaadhi dul saareen kulay hadal badan hal naga ma buuxsho baa leeyri maxaan idhaahday anaga wana la xiray inkastoo xadhigu si kala adkaa anagu aanu saacado yar ku jirnay haddana sifa sharci darro ah baana lagu xiray iyadoo waliba anaga hooyo aan qalanahay aan ku leeyahay waxaan idhaahdo war waan qalanahay si xun hayla dhaqmina ay 10 intay ku kay qabteen bay gaadhi dul saareen waliba aniga wanjalaad baa ii sii dheeraydo anoo markaas gaadhiga ka soo degay oo isla sidii caadiga ahayd ee shaqadeydii waajibkayga gudo buu nin askari igu yiri kaalayo ma waxaad rabtaa wariyaashaadii markaan ku yiri ha suu waa kuwa halkan warka ka duubay ina mari ku geeyay waxaan isiri askarigan jannada ay lagu soo diray warka kula doonanaya muxuu ah dabadeedna sidoo ii sii waday buu iga iigay 10 ciidan markaas uu yiri tanna qabta ku dara marka waa la isku kaayo wada daray inamadii la soo daayay maanta aad baan ugu faraxsanahay inkastoo aad uga xumahay saddexda wariye meesha ku haray waxaan doonayaa mid inaan shacabka yiraahdo oo nidhaahdo shacabku wariyaashu maaha cadowga Soomaaliland indhayo waxay idin hindhago iyaga hariya habeen idin adeega يعني aan fikir khaldan leedin ka dhaadhicin oo cadow leedin ka dhigin saxaafada intaasoo sanadood hadii wanaag leedin ku soo adeegayay oo wax leedin ku soo qabanayay waxaanu ka mid nahay basharka khaldama oo maxay ilaahay malaa'igtiisu ma khaldamin xataa lacala hadaan khaldano intaasoo sanadood oo wanaag idin ku soo shaqeynay maalintan khaldanay inaad nagu dhaaftaan weeyaan midna ciidankan leeyahay waxaan leeyahay markaad aragtaan wariye sidii argagixisadii hawlo dhaqmina oo hadilina rag iyo dumarba soo dhaweysta oo haddaad xidhaysan xataa si fiican ula dhaqma xisbiyada waxaan leeyahay in badan ayaynu u soo taagnay dawlado kala duwan oo isbedelayay oo inaguna halkii uunaynu taaganahay mid kastaaba markuu maxaan idhaahdaayay uu banaanka taagan yahay aanu kursiga ku fadhiisan wuxuu leeyahay saaxiib dhow uu leeyahay maxaan idhaahdaa wariyaasha markuu kursiga fuulana cadowga koowaad uu iska ilaaliyo waxa weeyaan saxaafada marka xisbiyada macaaridka kuwa soo socda waxaan leenahay maxaan idhaahdaayay kulay cashadii hore wala iska raacayo tii waday tan caawna waxaan u maleyn wariyaasha Soomaaliland oo dhan baa lagu guri doonaa xabsiga marka waxaan leeyahay hadii aad ku guuleysataan oo cidii haduu wadani ku guuleysto kii ilaahay keenaba waxaan leeyahay wajiga maanta iyo saaxiibtinimada maanta inaga dhaxaysa bedelina oo marka halka tagtaan yaana libaaxiyeeyo waraabayaal noqonin intaas ayaan ku soo gabagabeynaa saxaafadan midda fariinta ugu dambaysa halkan uga gudbinaya waxay nahay tiirka afraad quwad aad u weyn been leenay yaan leena kala tafaraaruqin oo leena kala furfurin maxaan idhaahdaa in isku duubnaano inaga cid walba yeena noqonin dusuuda ducada marka loo baahan yahay in la soo saartay aynu maxaan idhaahdaa isku duubnaano awoodeena iyo baawarkeena aynu tusno qof walba ku kasto oo cadow inagu noqdana kamaradaha aynu kala laabano war u leeyahay la gudbin dagaalkiina way noo bilaabmay